dhulkayna idinka idinku dacwooday idinka cabasho idinku idin ah iga celiya dadkaas ilaahay ka cabsada halayga celiyo waa yeelanahay halayga qabto waxaan maanta gurigeeda ku booqannay maamo Soomaaliyeed oo degan magaalada Muqdisho taa oo dhibana ah kana dacwoonayso garsoorka dalka ka jira sida maxkamadda maamadan oo ku andacoonayso in dhulkeedii laga boobayo ee ka dhisteen qolo guri filla ah maamadan oo magaceeda liyaado Faadimo Maxamed Tooxow ay sheegtay inay leedahay gabadheeda Luul Xasan Maxamuud Hiloole ee dhaxlayaan caruurteeda Luul maamadan oo sheegtay inay caruurta iyada soo korsatay haddana ay gacanta ku hayso caruurta iyo dukumiintiga ay dhulkaasi ku leeyihiin waxay dacwo ka tahay garsoorka dalka ee maxkamadda waxayna adeeg u diraysaa oo baaq ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo maayarka magaalada Mudane Cumar Finish maama Soomaaliyeedaan ahay oo dhibban waa dhibbanahay waxaan ka dhibbanahay maamulka oo jooga maxkamadda aan garsoorka aan ka dhibbanahay xagiisa dhulkaygii oon gabartayda ay laheeday asagoo yaallo oon u jeedno aw nin siihaa annakaana la soo barloogiisana aan haysanaa ilmaheediyaa joogaan anaa joogo see loo sii karaa madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo dalka waxaan kuu sheegayaa inaad dadkaas iga qabatid oo xoogaayo oo dhulkayga dhaxaayo qof boobi karta male idinkaa tidhaahdeen oo dawladda hadda waxna boobaya maxay yihiin maxaa noola boobaa hanagala qabto dhulkayni hanagala dhaxsho ilmahaas halaga dhaxsho ilmaha agoon waaye dhulkooda ayagaa leh in la xooga ma ahan halayga dhaxsho Farmaajaan u sheegay ra'iisul wasaarahan u sheegay duqa magaaladan u sheegay intaasoo dhan aan u sheegay intaasoo dhan aan iga soo gaara iga qabta maamulka maxkamadda halayga qabto ikan cabasho ka ahay halayga qabto aniga dhibaa iga haysto meeshaas dhib weynaa iga haysto halayga dhacsho inay i xoogaan waajib ma ahan nin dhagax ka dhistay dhulkaygii dhagax xoog badanaa dhagaxow ka dhistay ninkaas dhagaxiyo ijaar ka qaadaa weliba ma ogolaa kari dhulkayna waay wuxuu ku yaalaa Xaliim Bulsho agteeda wuxuu ku yaalaa degmada Yaaqshiid agteeda waa aqaanaa aniga taakaan u aqaanaa inuu xanaanada dhabarkeeda inuu xooga ma ahan oo dhisto cadaalada ka jirta idinkaa dhahdeen afkiina ka dhahdeen inaan ugu dhaqdiinaa rabaa 2015 wataa wax kala ma haysayo haddaba isu hayna fiiriya haddaad cadaalad tihiin oo dawlad tihiin nimankaas halayga qabto waa 3 isbahaysatay oo 3 tuug halayga qabto idin leeyahay saddexdiina aan idin dacwooday madaxweynaha ra'iisul wasaaraha duqa magaalada intaasaa idin dacwooday halayga qabto walaalayaalow halayga qabto ninkaas halayga qabto ma xamili karaaye halayga qabto calool xumo ugu rida inuu ilmahayga xoogo oo i dhibaateeyo ma rabi aniga ninkaas halayga qabto hadday dawlad jirto oo maamul jiro oo dawlad jirto halayga qabto nimankaas halayga dhiciyo nimankaas waa idin dacwooday halayga qabto iga qabta waxay baaq u dirtay qoladaas in laga qabto si degdeg ah looga soo gaaro maadaama ay cadaalad darro wadanka ka jirto sida ay sheegtay maamada 2015 ayaa waxay bilowday dacwadda dhulkan dawladii Farmaajo ka horeysay ay ka weysay wax cadaalad ah markay maqashay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay ku baaqeen qof waliba oo Muqdisho degan inaan gurigiisa xoog lagu haysan karin ayadoo dacwadeeda ka soo bilaabatay degmada ee gurigeedu ku yaalo degmada Yaaqshiid u soo gudubtay xalinta khilaafaadka ee dawladda hoose dibna ay u soo gudbiyeen maxkamadda dalka maxkamadan ee warqad u soo qortay maayarka magaalada kadibna jawaab celin uu ku sameeyay maayarka magaalada duqii hore ee Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow asagoo u xukumay oo u sameeyay warqad oo amar ku siinaya maxkamadda sare in loo fuliyo maamadan gurigeeda ay cadaalad u leedahay iyada garsoorkii markii warqadda loo geeyay ay xukun u fuliyeen ninkii kale sida sheegaysa inay qarash bixiyeen mana awooday tiri qarashkaas oo ma haysto inaan ku bixiyo qarash laaluush ah anoo hantideedii la boobay ay muddo 20 sano ay dad degan yihiin ay ka qaadanayaan kiro baaq waxay u dirtay mas'uuliyiinta dalka ugu sareyso Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ah madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maayarka magaalada codsigeedu wuxuu ku aadan yahay xaq haddaan leeyahay xaqiga la siiyo
haddaan xaqdaro ku socdana garsoorka inta la tago ha la fiiriyo cadaaladdarra hadday jirtana ha leega qabto